galab wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka Soomaaliga ee VOA oo idinka imanaysa Washington. waa talaado bisha Juulaay ee sanadka 2020 waa 7 waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirban iyo bogga voa.somali.com. idaacadda galabnimo waxaa idin daadihinaya Xuseen Barre Aadan iyo anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaar. qodobada ku maqli doontaan idaacadda galabtana waxaa ka mid ah wariye Cabdicasiis Axmed Gurbiye oo maanta maxkamad lagu soo taagay magaalada Muqdisho. aadii wariyaha loo heestay waxaan ka sameynay isurtaag la xiriiro in wariyaha aan lagu eedeyn karin xeerka ciqaabta Soomaaliyeed oo ay tahay in lagu dhaqmo ama xaaladiisa maadaama uu yahay qof mihnadle ah ay nidaaminayo xeerka saxaafadda gaar ahaan qodobka 29aad. qodobada kale ee aad dhegeysan doontaan waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan waaye aragnimada ay isdhaafsadaan dhalinyarada qurbaha ka timaada iyo kuwa Soomaaliya loogu tago. waxa weeye isfahan la'aan baa jira oo ma taqaanaa dadkii waxa weeye waa iyagii waa micnihii ku caayayo oo hadda adigii micnihii waa just lama sheekaysan karin sababtoo wax la yaabaa luuqadii inaadan si fiican u aqoon oo qof waxaa raadsanaysaa oo adiga xagga kale yimi ama English oo waa la wada fahmayo waa luuqad common ah oo hadduu qof Ingiriiska yimi iyo hadduu Ameerika ka yimi waa isla meeshii oo English uma lagu wada hadlaa. qodobadaas iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya iyo caalamka ayaan idin haynaa. Marka hore waxaad kusoo dhawaataan warkii dunida iyo Cabdixakiin Maxamuud Shirwac. tirada dadka u dhintay xanuunka COVID-19 ee dalka Mareykanka ayaa kor u dhaafay 130,000 maalintii Isniintii sida ay sheegtay xog ururinta ay sameysay jaamacadda Johns Hopkins. Mareykanka ayaa kaliya xagga tirada dhimashada dunida ugu horeeyay hase yeeshee sida oo kale ugu badan xagga tirada dadka uu xanuunkani ku dhacay iyadoo laga helay 2.9 milyan oo qof. waxaana guud ahaanba dalkan Mareykanka tan iyo bilowgii bishan Juulaay maalin kasta laga helaa xanuunka in ka badan 50,000 qof iyadoo gobollo badanna ay soo tabiyaan tirada maalinlaha ee dadka cusub ee xanuunkan ku soo dhacayo. magaalada koonfurta dalka Australia ku taala ee Melbourne ayaa lagu soo rogayaa bando 6 toddobaad kadib markii ay kordheen tirada dadka cusub ee xanuunka COVID-19 ku soo dhacayo. gudoomiyaha gobolkaasi ayaa maanta sheegay in dadka halkaasi degan aan loo ogolaan doonin inay guryahooda ka soo baxaan marka laga reebo inay u socdaan shaqo, dugsi, ballan dhakhtar iyo weliba inay cunto soo iibsanayaan iyadoo amarkana uu dhaqan gali doono habeenbarhka maalinta Arbacada. sidoo kale goobaha laga cunteeyo iyo weliba kuwa lagu qaxweeyo ayaa la xadidi doonaa iyadoo dadka loo ogolaan doono inay cuntada iibsadaan isla markaana ay guryahooda u qaataan halka goobaha timaha laga hagaajistay iyo weliba kuwa madadaalada iyagu ay xidhnaan doonaan. sida ay sheegtay jaamacadda fadhigeedu yahay dalka Mareykanka ee Johns Hopkins. dalka Australia ayaa xanuunka COVID-19 inta la xaqiijiyay laga helay 8,775 halka ay u dhinteen 106 qof. tiradaasi oo ah mid aad uga yar inta laga helay dalal badan oo dunida ah. dalka Kenya waxaa maanta dhaqan galay amar uu bixiyay madaxweynaha dalkaasi Uhuru Kenyatta kaasoo ogolaanayay in la geli karo isla markaana laga bixi karo magaalooyinka Nairobi, Mombasa iyo weliba Mandera. waxaana madaxweyne Kenyatta sheegay in dabcinta xayiraadana socdaalka saarnayd aana loo qaadin si fudud isla markaana dadka laga rabo inay ka dheeraadaan habdhaqanka aan habboonayn. isagoo sidoo kalena shaaciyay in dib loo furi doono duulimaadyadii caalamiga ah 1 bisha August halka dalkana si tartiib ah dib loogu furi doono. dalka Kenya ayaa xanuunka COVID-19 laga helay in ka badan 8,000 qof iyadoo ay u dhinteen 164 kale. ugu dambeyntiina dalalka Shiinaha iyo India ayaa isla waafaqay inay ciidamadooda dib uga qaadaan goob ku taalla xuduudda ay wadaagaan oo bartamihii bishii Juun uu dagaal ku dhex maray isla markaana ay ku dhinteen 20 askari oo reer India. iyadoo arrintan ay noqotay calaamadii u horeysay ee muujinaysa in xiisadda labada dhinac ee xuduudda ka dhalatay hoos loo dhigayo. go'aankan labada quwadood ee ku yaala qaaradda Aasiya ee lagu yareynayo xiisadda ka taagan goobta lagu magacaabo Ladakh ayaa timid kadib markii maalintii Axaddii ay wada hadal khadka telefoonka ku wada yeesheen Ajit Doval oo ah la taliyaha amniga qaranka ee dalka India iyo wasiirka arrimaha dibadda ee Shiinaha Wang Yi.
waxaanay arrintani noqonaysaa markii labaad ee labada dhinac ay shaaciyaan tallaabo ay hoos ugu dhigayaan xiisadda iyadoo tallaabo tan lamid ahna la qaaday bishii juun islamarkaana ay burburtay maalmo kadib markii ay labada dhinac isu dhaceen taasi oo keentay iska horimaadkii ugu xubaa ee dhinaca xuduudda ku dhex mara Shiinaha iyo Indiya. dhegaystayaal warkiina waa naga intaa. mahadsanid cabdixakiin maxamuud shirwac halka aad wararkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda VOA oo idinkaga imaanaysa Washington. wariye cabdicasiis maxamuud gurbiye oo ah taftiraha idaacadda goobjoog oo ku taala magaalada muqdisho ayaa maanta la soo horjoojiyay maxkamad ku taala magaalada muqdisho. hay'adda Human Rights Watch ayaa shalay ku tilmaantay eedaha ka dhanka ah cabdicasiis gurbiye kuwa aan sal lahayn. cabdiqaadir maxamed cabdulle ayaa warbixintan noo soo diray. wariye cabdicasiis gurbiye oo hore maxkamadda ku siitaysay qaab damaanad ah ayaa maanta ka soo hormuuqday maxkamadda gobolka Banaadir. xafiiska xareynta ayaa ku soo eedeeyay laba qodob wariye gurbiye kaas ay u cuskadeen faafinta warbeen abuura iyo ku xadgudub madaxeed. qareenada u dooday wariye gurbiye ayaa ka hor yimid eedeymaha loo soo jeedshay suxufi cabdicasiis gurbiye iyagoo sheegay inaan sharci loogu lahayn. abukaata daar arab ayaa ka hor hadlay maxkamadda isagoo sheegay in eedeymaha loo soo jeediyay wariye gurbiye aan loo marin sifo sharciya wuxuuna u sheegay saxaafadda saabaha maanta ay ku hor istaageen maxkamadda gobolka Banaadir oo loo horkeenay wariyaha. alxamdulillahi rabbil caalamiin aada u mahadsantihiin saakay waxaa maxkamadda gobolka Banaadir la horkeenay wariye cabdicasiis gurbiye maxkamadda la soo saaray anaga qareenada difaaca ay ahaynay eedii wariyaha loo heestay waxaan ka sameynay isurtaag la xiriiro in wariyaha aan lagu eedeyn karin xeerka ciqaabta Soomaaliyeed oo ay tahay in lagu dhaqmo ama xaaladiisa maadaama uu yahay qof mihnadle ah ay nidaaminayo xeerka saxaafadda gaar ahaan qodobka 29aad ee xeerka saxaafadda. sidoo kaleeto waxaan sameynay isturtaagyo sharci ah oo waafaqsan qodobka 105 ee xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed oo dhammaantood la xiriiro sharci ahaanshaha eedda xafiiska xeerlaaliyaha guud ee qaranka uu ku soo oogay. markii ay surtaaga sameeyeen xafiiska xeerlaaliyaha waa ka jawaabay waxay la ahaaday ayuu sheegay aragtidiisu ka dhibtay kadib markii dood dheer kadib maxkamaddu waxay go'aamisay in arrintaas ayadu go'aan ka soo gaari doonto. waxaan sugaynaa maxkamaddan go'aan ka sugaynaa ku saabsan eedda wariyaha loo heesto in dacwadeeda la sii wadi karo iyo inaan la sii wadi karin. annaga waxaan qabnaa inaan eedda la sii wadi karin dacwadaas la sii wadi karin. xeerlaarintuna waxay qabtaa in dacwadaas la sii wadi karo. sidaas ayaana muxuu ahaay maxkamaddu go'aan looga sugaa. ururka isku tagga suxufiyiinta Soomaaliyeed xogayaha guud ee Maxamed Ibraahim Macalimo ayaa isla la hadlay saxaafadda isagoo sheegay in qareenada u dooday wariye gurbiye ay maanta ka hor tageen sifo sharci darro oo la rabay in lagu maxkamadeeyo wariye gurbiye sida ay sheegeen. waxaan dhageysanay oo aan goobjoog u ahayn dacwadii saaka xeer ilaalinta ay ku soo oogtay wariye cabdicasiis gurbiye. runtii waxaan rabnaa inaan taageerno go'aanka ay isku hor istaageen objectionka ay hor dhigeen maxkamadda qareenada kale ah daahir maxamed cali axmed cabdiraxmaan diiriye iyo mawliid mataan salaad. saddexdaasi qareen waxay si sharci ah u sheegeen inay dacwadan aanay rasmi ahayn oo aan la geli karin. taasaanan taageersannahay sababtoo ah kuma qotonto oo waxay taabanaysaa xaq dastuuri ah. waxaa sidoo kale aan aad uga xunnahay qodobada la soo qaatay ee 328 iyo 269 xeerka ciqaabta Soomaaliyeed inaan lagu qaadi karin wariye sababtoo ah horay madaxweynaha Soomaaliya sidaad ogtihiin 3 bishii May ayuu wuxuu soo saaray inaan lagu xukumi karin wariye xeer ciqaabeed. madaxweynaha soo saaray 3 May haddaan ka soo tagnay. marka waxaa maanta nasiib darro ah in qareenka xiraalinta ka socday ama abukaataha yaxye maxamuud saciid uu cuskanayay qodobo oo kamid ah qodobadaas horay outdated ku ahaa ee dhacay ee horay madaxweynuhu u sheegay. marka waa nasiib xumo qodobadaas in la xigto. tan kale waxyaabaha ay soo bandhigeen oo dhan wax raad laha haba yaraatee ma laha. waxaan uga dambaynaa qareenada, waxaan uga dambaynaa cid walba oo sharci yaqaan, laakiin waxaan aaminsannahay in sababta meesha maaragtay loogu haysto inay tahay arrin la xiriirta saxaafad. qodobada la isku haystana ay yihiin qodobo saxaafadeed. taasaana ku garab istaagannahay difaacayaasha wariyaha. waxaan rajaynaynaa in maxkamaddu ay awoodi doonto oo markay aragtay sida maaragtay saraaxada leh ay u soo bandhigeen qareenada inay iska ridi doonto oo ay iska reebi doonto meeshaasna uga hari doonto
go'aanka maxkamaddana waxaan rajaynaynaa inuu kaas noqon doono oo cabdicasiis uu xor noqon doono shaqadiisana uu xor u noqon doono waxaana ay yihiin wax la xiriira saxaafad ee aan ahayn wax xeer ciqaab la xiriira haba yaraatee cabdicasiis gurbiye ayay hore u soo hortay dowladda Soomaaliya waxaase markii dambe qaab damaanad loo sii daayay isagoo hadda bannaan ku jooga damaanad Abdulqaadir Okey VOA Muqdisho wasiirkii hore ee caafimaadka Somaliland Salebaan Axmed Ciise Xagle Toosiye ayaa ka hadlay colaad laba beelood ku dhex martay deegaano ka tirsan Buuhoodle wuxuuna ku tilmaamay colaadaasi mid aan loo baahnayn Qadar Maxamed Cakulle ayaa warbixintan noo soo diray dagaalkan ayaa la sheegay in deegaanka Horfadhi oo ka tirsan gobolka Buuhoodle uu ka dhacay iyadoo dhimasho iyo dhaawacba dagaalku uu geystay muddo ka hor ayaa waxaa halkaasi laga sameeyay waan la dhex dhigay labada beelood iyadoo dagaalkan soo cusboonaadayna aanay jirin ilaa iyo imika cid ka hadashay wasiirka hore wasaaradda caafimaadka Somaliland Dr. Salebaan Ciise Axmed Xagle Toosiye ayaa u sheegay VOA isagoo jooga magaalada Buuhoodle in colaadaasi ay tahay mid aan loo baahnayn isagoo ugu baaqay garaadada waxgaradka iyo culimaduna inay gurmad ka sameeyaan arrintan lagu soo afjarayo kuwajahan arrinta oo aan u dirayo labada beelood arrintan dhex martay oo muddo dheer soo socotay waxaan leeyahay in ay ilaahay ka baqaan garaadada iyo salaadiinta waxgaradka alhowdiinka inta ilaahay ka baqaysaaba inay kacaan colaadani way soo noqnoqotay waa colaad maxnad darri ah waa colaad dad badan ku dhinteen waa colaad aan loo baahnayn inay sii socoto waxaan ku baaqayaa in la joojiyo oo halkaa lagu hakiyo la isuguna tago in la joojiyo oo aanay dib u soo noqon Xagle Toosiye ayaa ugu baaqay dhalinyaradu inay ka fogaadaan inay wax doora ku yeeshaan dhacdadan dagaalka ama colaadda aad ku jirtaan mid diinteennu ogoshahay maaha waa mid naftaada aad ku haligayso aakhirana aad cadaab qablayso maaha mid faa'iido leh ka waantooba ilaahay ka baqa labada beelood iminka dhibkani dhex maray waa laba beelood oo isku hal beel ah waa laba qoys oo isku hal qoysa waxaan dhallinyarada usoo jeedinayaa waxay idinkama dhexeeyaan mushkiladii idinkama dhexayso wax alliyaalay wax mushkilada oo keeni kara in maalin walba dad dhinto ma jirto ilaahay ka baqa Qadar Maxamed Cakulle VOA Hargeysa salaasada maanta ayaa u dambaysa toddobaad ay ardayda wax ka barata dugsiyada maamul goboleedka Puntland ay ku soo jireen imtixaanada shahaadada ee dugsiga sare ardayda ayaa sheegay in ay diyaargarowga sanadkani uu ka duwanaa kuwii hore haddaba khibradda ardayda ee sanadkan ee deegaanada Puntland iyo Somaliland ayaa waxaa warbixintan ka diyaariyay Maxamed Cabdi Sandere ardayda Puntland ayaa imtixaanadan ku soo jiray 3 maalmood ee la soo dhaafay iyagoo maadooyinka u dambeeyana maanta ku soo gabagabeynaya Cabdalla Yaasiin Cabdullaahi oo ka socda dugsiga sare ee Nugaal ee magaalada Garowe ayaa ka waramaya diyaar garowgii ay imtixaankan u soo galeen wallahi diyaar garowga iska direemsan corona dhacayna oo iskuulada casharada qaar fadhiyay macallimiinta nala dadaalay casharada page wasaaradda nala soo dhigay WhatsApp group iyo waxbana loo sameeyay qaar ba casharada Zoom nala dhigay adoo siyaabo kala duwan ba casharada macallimiinta nala soo gudbiyeen ayaabo kale anaga iska siraaraysanay baartaan sameynay noocaas aan u diyaarinay kasto wax badan aan la diyaarin hadana wixii markii adigu la qaban karo la awooday qaab noocaas lagu diyaariyo macallimiinta baraha bulshada ka xiriirno qaab noocaas lagu diyaariyo macallimiinta billahi khayr Cabdixakiin Ismaaciil Aariyo isna arday ka socda dugsiga sare ee Nugaal ee Garowe ayaan weydiiyay sida ardayda ku nool deegaanada fogfog ee aan kaag dhaweyn magaalooyinka technology-gu ku xoog badan yahay ayagoo casharada ula socdeen markii isbarbardig lagu sameeyo casharadu ma ahayn kuwa ka soo geliya kaliya macnaha internet kaliya laga soo deynaya ma ahan waxay ahaayeen kuwa ka soo geliyay rikoorada cadar laga soo deynayay telefishinada laga soo deynayay dhammaan arday kasta meel kasta uu joogo haddii uusan haysan aaladan isgaarsiinta social media dabcan waxuu kala socday idaacadaha rikoorada laga soo deynayay dhinacaas iyo Somaliland xaalku aad buu uga duwanaa Puntland ardayda Somaliland ayaa dhammaan 10kii maado ee lagu imtixaamay hal maalin ku dhameeyay iyadoo imtixaanka la qaaday 27kii bishii hore ee June
axmed maxamuud qoje oo ah arday ka socda dugsiga sare muuse yuusuf ee magaalada laascaanood ayaa ka warbixinaya kala duwanaanshaha imtixaanka sanadkan iyo tusaale ahaan kuwa ay ku soo qaateen fasalada koowaad labaad iyo saddexaad ee dugsiga sare waad mahadsantahay horta weriye kolley kala duwanaan fara badan baa u dhexaysay labada imtixaan waayo kolkii hore imtixaanada waxaa loo qaadi jiray waxay socon jireen 5 casho maalin dheelna waxaa la geli jiray 2 xishadood laakiin maantay way ka duwaneyd imtixaanada noocaas ahaa waayo hal maalin ayaa 10 maadaba la wada gala marka waxaa u dhexeeya farqi weyn ayaa u dhexeeya labada imtixaan la kala geli jiray sanadihii hore iyo sanadkan waana dareemi kartaa dee hal maalin wax 5 maalmood la geli jiray hal maalin lagu soo koobo dee dareenkeeda qof walba way taaban kartaa u dhexeeya intaas wey waan gartay markaa saacaduhu marka la isu barbardhigo sanadihii hore sanadkan ma kala dheeraan inta uu qofkii maadadii haysanayo inta saacadood haysanayo waa su'aal aad iyo aad muhiim ah runtii waxaad moodaa in halkii xiisad waagaas ama sanadkii hore la qaadan jiray waxay ahayd 2 saacadood ayaa hal xiiso walbaaba 2 saacadood bay lahayd taymkeeda laakiin sanadkan waxaa dhacday 5 maado in 2 saacadood aad ku gasho waana wax runtii aad iyo aad u qariib ah waana imtixaan runtii aad iyo aad runtii noogu qariib ahaa inaad 5 maado hal maalin weliba 10 maado inta hal maalin ku gasho weliba 5 xiso oo ka midana 2 saacadood gudaheed laga rabo inaad ka shaqeyso dareen noocaas ayaa jiray sidaynu soo xusnay sanadkan waxaa imtixaanka la galay xilli uu dunida si weyn u saameeyey xanuunka COVID-19 haddaba sidee ayay ardaydu arrintan ugu diyaar garoobeen intay imtixaanada ku jireen waa kan mar kale cabdixakiin ismaaciil aaryo maantii iska ilaalinta xanuunka corona waxaa la xiran jirnay meeshan faasmayska afka lagu xirto iyo galofiska iyadoo lagu hortegayo corona awgiis lagana badbaadinayo dad badan badbaadaan ardayda iyo shacabkuwa ardayda dhinaca Somaliland iyo Puntland waxay isku raaceen imtixaanka sanadkan uu ka fududaa kuwii sanadihii hore ardayda laga qaadi jiray waa marka loo barbar dhigo fasaladii koowaad labaad iyo saddexaad amaba inta ay ka maqleen ardaydii iyaga ka horeeyay fasalada afraad Cabdulla Yaasiin ayaan weydiiyay waxa ay ka filayaan natiijada sanadkan waxay ku xiran tahay qaabka wasaaraddu ay waxa u qiimeyso kulliba imtixaanku aad u fududaa oo soo imtixaan dawladdu soo habeysay oo talagalayna ardayda qaab macnaha arday aan wixii haafna soo baratay haafna dhimanaa baa loo soo diyaariyay aduu kulliga waxay iska noqonaysaa sidii hore ay ahaan jirtay ardayda qaar eedu bay keeniyaan qaar b laakiin waxaa laga yaabaa in arday badan oo dhacda ma rajeynayo ma inay arday badan yihiin cabdixakiin ismaaciil aari ayaa ugu dambeyn ii sheegay in maadooyinka sida afka ingiriiska iyo tiknoolajiyada macluumaadka ay maanta imtixaanka ku soo gabagabaynayaan aad ayuu mahadsan yahay maxamed cabdisandheero inala socodsiinaya warbixintaas ganacsatada gaadiidleyda Soomaalida ee dalka Kenya ee isaga kala gooshi jiray magaalada caasimadda ee Nairobi iyo gobolada kale ee dalkaasi ayaa maanta dib u bilaabay shaqooyinkoodii arrintan ayaa ka dambeysay kadib markii xayiraadda safarada dhulka ee 4 bilood ee la soo dhaafay gaadiidka dhulka ee Kenya saarneyd uu maalintii shalay ka qaaday madaxweynaha dalkaasi Uhuru Kenyatta wariyaha VOA-da Qadar Maxamuud Xareed ayaa la kulmay qaar ka mid ah ganacsatada ka shaqeeya baabuurta ee xaafadda Islii magacaygu waa Cabdiladiif kamida shaqaalaha Muxsin Express farxad aad u weyn baan dareeminaa maadaama aanu ka shaqeysanaynay basaska ama transportationka waxa la dhaho waqti dheer xanibaadna saareyd alxamdulillah waana loo furay shalay shuruudaha jira insha Allah shuruudahan waan buuxin doonaa marka aad baan u soo dhaweynaynaa madaxweynaha wadanka furitaanka uu furay midaan sugaynayna way ahayd aadna loogala soo daahay marka khadar xaalku waa alxamdulillah waa maanta iid bay noo tahay farxad marka shuruudahan ma kuwii hore ama kuwa kale cusub oo la soo kordhiyay
niyo kuwii hore wax waa kaga jira xoogaa waana la yaradkeeyey sida bahashan oo mishinkan oo temrijaha waa lagu soo daray weli laakiin waxaa ka mid ah in dadku ay kala fog yihiin oo laba kursi oo aan la wada fariisan karin marka waxyaabo badan oo lagu soo kordhiyay baa jira kuwii horena ka mid bay yihiin waxba lagama fududeyn marka ma bilowdeen shaqada goorma bilaabaysan shaqada maanta kambaniyada qaar baa baxay inkastoo la wada bixin sababtan la wada bixin waxay ahayd shalay bay wixii la dhahay waxa la furay ee shuruudahana la soo gadiyay marka waa dareemi kartaa shalay 7 saacadood aan madaxweynuhu wuxuu hadlay shalay nisba lama wada dhameyn karin marka maanta baa la isdiyaarinaya marka insha Allah si caadi u bari u bilaabinayaan furuudadkan ku jira marka guud ahaan goboladii aad aadi jirteen waad bilaabaysaan oo gobolka waqooyi barina uu qayb ka yahay guud ahaan meel alla meeshan safar ku tagay jiray oo dhan waan ku tagaynaa waan aadaynaa waqti walba bixi jireen waan baxaynaa Abdullaahi yara maadaama laakiin inkastoo xoogaa waxa cilad ka imaanaysaa gaariga halkan hal saac ka bixi jiray kaabiga wali muusa qaadin madaxweynaha inkastoo dib loo dhigo 3 saac u dhahay marka waxaad moodaa halkan hal saac uu ka baxo in dhaxda uu u galayo waqtigu marka waxa u dambeynaysaa adii gawaaridii halka saaxiibina bixi jiray ma baxayaan laakiin ruud kale oo dhan caadi iyo meeshan aadi jiray oo dhan waan aadayna Abdullaahi marka ka waran maxaa si bedelay dhaqaalihiina muddadii xayiraadan ay taagnayd dalka u kala xirnaa dhaqaalaha waa dareemi kartaa annaga dad bay ahayd waxaan qaadi jiray oo u kala gudbin jiray caasimadda ilaa Garissa takalaanaga muxsinaan from Garissa waan ka soo bixi jiray to Mombasa marka labadii magaalo way xirnaayeen wadanku weynaa marka dhaqaalaha waa dareemi kartaa 3 bilood oo aan shaqaysanaa walba iska ahayn ninkastoo xoogaa gawaarida alaabta way shaqaynayeen laakiin xoog u badan basasku ahaa basaskina qof hadii dukaankiisa la xiray oo 3 bilood xaafad iska fadhiyay waa dareemi kartaa saameynta ku yeelanayso marka alxamdulillah lagayna way hada soo laabatay waa khayr baan rajeynaa aad ma santaan aad baan ku salaamay haye sida u aragtid in dib loo furay xayiraadii gobolada dalka bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa Zakariya Kahay Sheekh Daahir madaxweynaha maadaama uu dib u furay dhaqaalihii wadanka waxay ka caawinaysaa dadkii ganacsatada ahaa ee gobolada iyo Nairobi u dhaxeeyay in ganacsigu dib u furmo dadkii gobolada joogay Nairobi soo aadi jiray wax ka iibsan jiray inay imaadaan baabuurtii basaska hayd inay shaqada dib u bilaabaan dhalinyaradii shaqalaanteed ee baabuurta ka shaqayn jirtay iyo ganacsiga gobolada inay dib shaqo u bilaabaan arintaas ayay ka caawinaysaa waa arrin aad u muhiim ah waana ku faraxsanahay hadii aan ganacsatada wadanka joogto qaybta ka shaqaysaa Zakariya adiga waxaan ka shaqeeyaa yani qaybta timirta baan gobolada iyo wadanka keenaa dibaddan ka keenaa marka maadaama hadda la furay yani ganacsiga aad kor buu u kacayaa yani dhaqaalihiina uu balaarinaya insha Allah markii hore laakiin shaqadiina ma socotay idinka shaqada way socotay laakiin hoos bay ahayd laakiin waxaan rajaynaynaa maadaama uu dhaqaalihii dib loo furay inay shaqadii kor aado yani socodkina uu dib u soo laabto ala leeyahay hoos u dhac dhaqaalaha jira marka maxaa dareemaysaa xaalka ka waran dhaqaalaha aad buu u hooseeyaa dadkii shaqo la'aan waaye ninkii awal hore gadi jiray yani alaab badan hadda alaab yar buu gadayaa maadaama aysan dadkii lacag haysanin haddii dhaqaalaha dib loo furo waxaa la rajaynayaa in dadkii ay lacag helaan ayna wax iibsadaan dhaqaalihiina uu kor u kaco insha Allah dhegeystayaasha VOA ee Kenya waxay naga dhageysan karaan efemyada VOA Afrika ee magaalooyinka Nairobi iyo Mombasa. Nairobi waxaad naga heli kartaan FM 107.5. Mombasana waxaad naga dhageysan kartaan FM 107.8. Ha moogaan idaacadda VOA kuna xidhnow. warka VOA iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhageyso FM-da VOA ee magaalooyinka Muqdisho, Hargeysa, Nairobi, Mombasa iyo FM-yada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka Soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan. haddii ay ku sheegaan macluumaadkeena ha moogaan bogga aan ku leenahay internetka ee voa.somali.com haatanna ku soo dhawaada heestan dabacsan
goordhow waxaa inoo soo socda xubintii dooda gaaban umuuraha Mareykanka iyo qodobo kale marka horese warkii dunida iyo Cabdixakiin Maxamuud Shirwa. tirada dadka u dhintay xanuunka COVID-19 ee dalka Mareykanka ayaa kor u dhaafay 130,000 maalintii Isniintii sida ay sheegtay xog ururinta ay sameysay jaamacadda Johns Hopkins. Mareykanka ayaa kaliya xagga tirada dhimashada dunida ugu horeeyay hase yeeshee sida oo kale ugu badan xagga tirada dadka uu xanuunkan ku dhacay iyadoo laga helay 2.9 milyan oo qof. waxaana guud ahaanba dalkan Mareykanka tan iyo bilowgii bishan July maalin kasta laga helaa xanuunka in ka badan 50,000 qof iyadoo gobollo badanna ay soo tabiyaan tirada maalinlaha ee dadka cusub ee xanuunkan ku soo dhacayo. magaalada koonfurta dalka Australia ku taala ee Melbourne ayaa lagu soo rogayaa bando 6 toddobaad kadib markii ay kordheen tirada dadka cusub ee xanuunka COVID-19 ku soo dhacayo. gudoomiyaha gobolkaasi ayaa maanta sheegay in dadka halkaasi degan aan loo ogolaan doonin inay guryahooda ka soo baxaan marka laga reebo inay u socdaan shaqo, dugsi, ballan dhakhtar iyo weliba inay cunto soo iibsanayaan iyadoo amarkana uu dhaqan geli doono habeen badhka maalinta Arbacada. sidoo kale goobaha laga cunteeyo iyo weliba kuwa lagu qaxweeyo ayaa la xadidi doonaa iyadoo dadka loo ogolaan doono inay cuntada iibsadaan isla markaana ay guryahooda u qaataan halka goobaha timaha laga agaajistay iyo weliba kuwa madadaalada iyagu ay xidhnaan doonaan. sida ay sheegtay jaamacadda fadhigeedu yahay dalka Mareykanka ee Johns Hopkins. dalka Australia ayaa xanuunka COVID-19 inta la xaqiijiyay laga helay 8,775 halka ay u dhinteen 106 qof. tiradaasi oo ah mid aad uga yar inta laga helay dalal badan oo dunida ah. dalka Kenya waxaa maanta dhaqan galay amar uu bixiyay madaxweynaha dalkaasi Uhuru Kenyatta kaasoo ogolaanayay in la geli karo isla markaana laga bixi karo magaalooyinka Nairobi, Mombasa iyo weliba Mandera. waxaana madaxweyne Kenyatta sheegay in dabcinta xayiraadana socdaalka saarnayd aana loo qaadin si fudud isla markaana dadka laga rabo inay ka dheeraadaan habdhaqanka aan habboonayn isagoo sidoo kalena shaaciyay in dib loo furi doono duulimaadyadii caalamiga ah 1 bisha August halka dalkana si tartiib ah dib loogu furi doono. dalka Kenya ayaa xanuunka COVID-19 laga helay in ka badan 8,000 qof iyadoo ay u dhinteen 164 kale. haatan dhegeystayaal ku soo dhawaada amuuraha Mareykanka iyo Maxamed Cabdi Sandere. kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa bartamihii bishii June ayna dhaaftay sheegay in tiro 10,000 askari ku dhow uu ka soo bixin doono saldhigga uu Mareykanku ku leeyahay dalka Jarmalka. haddaba intaynaan ka hadlin sababtoo Mareykanku u dhimayo ciidankiisa dalkaasi balayna horta eegno tirada guud ee dalkaasi ku sugan. waa kan Cabdinuur Ibraahim Cabdalla oo ku takhasusay amniga caalamka kuna sugan dalka Britain. waad mahadsan tahay Maxamed Cabdi. su-aasha aad weydiisay haddaan toos u galo walaal, ciidamada Mareykanka ee ka jooga Yurub waxaa lagu qiyaasaa 38,000 oo askari oo Mareykan ah. runtii ciidamadaasina waxay u badan yihiin wadanka Jarmalka oo joogaan bayskooda. wadamo oo kale oo meelo yaryar ka joogaan way jiraan, laakiinse ciidamadaasi wadanka ay joogaan ay u badan yihiin waa Jarmalka. maxaa haddaba madaxweyne Trump ku keenay in tallaabadan uu qaado? waa kan Dr. Axmed Cali Yuusuf oo arrimaha Mareykanka aqoon u leh fadhigiisuna yahay magaalada Houston, gobolka Texas ee dalka Mareykanka. waa mahadsantahay Sandere. arrimaha ugu weyn ama sababta ugu weyn Mareykanku u dhimay ma aha mid istaraatiijig ah, laakiin madaxweynaha wadankan ayaa ballanqaadadiisii waxaa ka mid ahaa mar walba inuu yidhaahdo American First.
waxa uu mar walba jarmalka ku eedeyn jiray in ciidamada maraykanka ay difaacaan uusan jarmalka wax contribution ama uusan ku darsan dhaqaalaha ku baxa wuxuu yiri jarmalku waa wadan qaniya wadamada adduunka ugu hanti badan marka waxaa la gudboon inay bixiyaan qarashada ku baxa ciidamada maraykanka halkaas degan jarmalka kaliya ma aha xataa marar badan oo ay wadamada sacuudiga oo kale marka jarmalka waa kordhiyey contributionka ama waxay ku daraan nato balse waxaa jirta madaxweynaha wadankan iyo cilaaqaadka madaxda yurubka oo aan fiicnayn waxaa garan kartaa go-aankan intuu soo birin ka hor ku casubiyey wadamada G7 inay yimaadaan Camp David oo u dhow Washington marka ra-iisul wasaaraha wadanka jarmalka way arrintaa way ka cudur daaratay iyada oo u sababeynaysa logistic ahaan safarka inuu macquul ahayn cudurrada jiro marka ciidamada la dhimaya ciidamo badan maaha waa 520 waxaa qorshaha uu yahay in laga soo qaado 9,500 cabdinuur ibraahim ayaa sheegay in dalka britain uu isna damacsan yahay in tallaabooyin kuwaas la mid ah uu qaado sidoo kale arrinta jirta waxay tahay dowladda ingiriiska oo iyadana ciidamadii Poland iyo area ka joogay kala soo bixi doonto oo rabtay inay soo celiso mar hadday Yurub ka baxeen midowga Yurub marka arrinta ugu weyn waxay noqonaysaa baan u maleeyaa xogaa cadaadis oo dhanka in dhaqaalaha Yurub ay ku baxshaan gaar ahaan dowladda Jarmalku NATO marka iyo mid malaha dhaqaale gooni oo kale iyo sidoo kale Ruushka iyo Donald Trump oo si hoose lagu eedeeyay inay siyaasadoodu sida Mareykanka cadaawadii hore madaxdii hore Mareykanka ka dhaxayn jirtay aysan ka dhaxaynin sida ay hadaba reer Yurub gaar ahaan Jarmalku u arkaa tallaabadan Mareykanka mar kale Dr. Axmed Cali Yuusuf jarmalka iyo reer Yurub waxay u arkaan arrintan arrin ka duwan ciidamada Mareykanka ee jooga Mareykanka ama Trump wuxuu u arkaa inay difaacayaan Yurub laakiin reer Yurub waxay u arkaan mid labadaba dan u ah ciidamada waxay u joogaan danaha Mareykanka meeshaas waxa ay macnaha laga ilaaliyaa ama laga kontroolaa Yurub iyo Middle East airbase ugu waaweyn oo Mareykanka Jarmalka ku leeyahay sida Ramstein iyo kuwa kale waa goobaha isbitaalada waaweyn ee ku yaala dhaawacyada Afghanistan iyo Iraq iyo meelaha wax ka dhacaan dadka isla markiiba loo soo daadguraya lagu daaweeyo waa xarun weyn oo danaha Mareykanka uu ka fushado maaha oo keliya in laga difaaco Yurub balse isaga laftigiisa macnaha dana waaweyn inuu ka leeyahay marka Yurub waxay u arkaan arrintan mid macnaha maamulka hadda jira ay u arkaan mid macnaha aan xiriirka sidoo ah uusan ahayn waxay ku talagaleen inay xoojiyaan iskaashigooda difaaca EU-da iyaga u gaarkaa inay samaystaan mid isku tashi ah intii nidaamka waddankan isku bedelaya saasay iyagu u arkaan inay isku sii tashtaan ilaa iyo waxa intay isbedelayaan ugu dambeyntii waxaa la isweydiinayaa haddii madaxweyne Donald Trump uu kaga dhabeeyo ballanqaadkiisa cidda ay tallaabadani faa'iidada u leedahay marka la eego quwadaha caalamka tan ugu weyn oo laga wax ka faa'iiday Ruushka waxaa markii Mareykanka uu ku dhawaaqay in ciidamadooda jooga Jarmalka dhimayaan Ruushka arrintaas uu soo dhaweeyay uu hambaliyay waliba wuxuu raacay in waliba lagu daro hubka culus oo nuclearka laftigooda in la qaado ciidamada Mareykanka Yurub way joogaan Jarmalka iyo Poland oo waliba Ruushka aad iyo aad ugu dhow arrintaa waa soo dhaweeyeen mar walbana Ruushka isaga waxay u tahay guul haddii friction ama macnaha haddii khilaaf soo dhex galo Yurub iyo Mareykanka laakiin taa waxa ay sida muuqata waxay noqonaysaa mid joogta ma aha xilliyo adag ayaa lagu jiraa Yurub iyo Mareykanka intaba laakiin wax oo temporary inay noqon doonaan haddii nidaamka waddankan isbedelo in wax badan sida hore ku noqdaan marka arrimaha loo xoojiyey ciidamada Mareykanka 2014 ayaa la xoojiyey kadib markii ciidamada Ruushka ay goosteen qayb ka tirsan Ukraine Crimea halisyo badan ee meeshaas Yurub ay kasoo food saartay marka Ruushka mar walba oo wax la dhimo ama hub ahaan ama askar ahaan oo halkaa jooga oo uu arko isaga inay meesha ka ilaalinayaan arrin soo dhaweynayo tan China inta Yurub macnaha wax oo saameyn kuma laha sida u saameyn karto ma garan karo laakiin waxaa soo dhaweeyay arrintan dowladda Ruushka oo aragtay faa'iidada ay tahay waxaa inta kale oo meesha haddii ay waxaan dhacaan khasaaraya dadka ku nool magaalooyinka baysida Mareykanka ku yaalaan
u dhow sida Charleston iyo magaalooyin kale oo dadka meesha degan ee aad uga shaqaystaan ilaa iyo 10,000 kun oo Jarmal ah ayaa ka shaqeeya xerooyinka Mareykanka logistiga ahaan iyo adeegyo badan kuwa laftigooda mana ka saara ka soo gaarayso. dhegaystayaal waxaa intaas inoogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha maraykanka maanta kaga hadalnay madaxweynaha maraykanka Donald Trump oo sheegay in ku dhowaad 10,000 oo askari uu ka soo saarayo saldhigyada uu ku leeyahay dalka Jarmalka. Taynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono waxaan dhegaystayaal idinka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo. هذا يمثل محمد سندرة ونرجع سنين برنامج أمورها مريكا كذا كسرتنا وفي haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubintii doodii gaabnayd waxaa inoo haya Yaasiin Ciise Wardheere. kulanti wanaagsan dhegeystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno doorashooyinka Soomaaliya soo socda iyo nidaamka golaha doorashooyinku ay wadaan ma yahay kuwa markaasi ku dhisan qaabkii loogu talagalay oo dastuuriya mase waxa ku jira waxyaabo dastuurka lid ku ah waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay waxay kala qayb galaya Dr. Cabdisalaam Cabdi oo falanqeeya arrimaha geeska Afrika iyo Ismaan Cige oo arrimaha siyaasadda Soomaaliya ka faallooda waxaan ku bilaabayaa Ismaan Cige. Soomaaliya 30 sano dawlad la'aan ahayd 30 sano system la'aan ahayd 30 sano kala googoonayd hadda wali kala maqan tahay marka anigu waxaan qabaa seexaga loo xigtaa ilkana ku nabad galan xaalku inuu yahay see wax loo tukubiyaa inay tahay inayan ahayn maxaa saa wuxuu socon waayay dawlad muddo badan baa dawlad la'aan jirtay wax badan baa kala daadsanaa wax badan waa la soo qabtay wax badanna waa ay dhiman yihiin waxaan qabaa sida hawsha u socoto inay tahay si loo qaateen Dr. Cabdisalaam Cabdi ugu horreyntii runtii waxaan ogsoonahay Yaasiinow in Soomaaliya maanta ay taagan tahay meel isgoys ah isgoyskaas oo maaragtay haddii jid khaldani ay qaado jidka diktatoriyada iyo jidka maxaan ku idhahdaa dhibaatada iyo mugdiga iyo qabyaalada haddii ay qaado shacabka Soomaali dhibaato ay uga imaanayso oo loo laaban doono يعني dhibaatadii aan ka iimaanay oo ka soo kasbanay intaas oo sano ka hor waxaan anigu aan dhihi lahaa aan u arkaa dhibaatadan hadda maanta taagan oo koos gareyn karta ama sababi karto kow firaaq dastuuri labo mugdi iyo khilaaf siyaasadeed saddex amni darro afar colaad intaas oo dhan waxa sabab u ah guddiga doorashooyinka oo la rabay in ay dalka ay gaarsiiyaan doorasho hal iyo cod laakiin waajibaadkooda ayay gabeen markii geel loo heesayeen goroya ayay u heeseen loomana baahno dhibaatadana waxa maaragtay ay salka ku sii haysaa dawladda oo loo baahan yahay arintaas in ay xal degdeg u keento 40 sano in ka badan Soomaaliya doorashooyin kuwa Cabdisalaam uu sheegaya kama ay dhicin Soomaaliya 32 sanadoodna hadeer dawlad aan baa wallahi system ma jirin marka anigu waxaan u arkaa ku soo boodid ma ayana xaajadu ee waa midaamin sida darteed waxaan qabaa oo igu weyn waxba inoo sameysana ixtiraamno ana tukubino ana isku dayno maqaamka ummadaha horumaray ay ka gaareen dhinaca doorashooyinka iyo dhaqanka iyo maamulka aynu higsan Cabdisalaam barnaamijkan muddo la soo waday 6 sano ugu dambeysay ayaa nidaamkan doorashooyinku ay soconayeen haddana waqtigii waa gabaabsi marka talooyinka la soo jeedinaya ku saabsan in bal ugu yaraan kordhiyo si markaas loogu tabaabulshaysto farsamo ahaan maxaad arinta ku diidantaa waxaan ogsoonahay Yaasiin Soomaaliya markan oo kale hadduu jiro khilaafaad siyaasadeed waxa looga gudbi karaa kaliya political agreement oo ah wada xaajood wax la yiraahdo wada xaajood siyaasadeed oo ay yeeshaan dhamaan saamilayda siyaasadeed ee dalka Soomaaliya meesha ay joogto waanu garanaynaa mudane Cabdullaahi Farmaajo shalay markuu imanayay wuxuu yiri anigu waxaan rabaa kaliya 4 sano inaan joogo hal maalin ama hal daqiiqana mar raba inaan ku darsado kadalika khayr wasaaraha uu ka hadlay arrimaha doorashooyinka laakiin waxa amooda in ay guddigan ayaga isxijinayaan ay wadankana ay ku wadaan meel mugdi sida daraadeed dawladda iyo guddigaba waxaan soo jeedin
jeedin lahaa aniga in ay iscasilaan wadankana la aasaaso wax la yiraahdo marxalad ku meel gaar ah oo dawladda marxalad ku meel gaar ah oo maaragtay ka bixisa dhibaatadan iyo mugdigan iyo qalalaasadan taasan soo jeedin lahaa laana anaga waxaan aragnaa dawladda inay ku mashquulsaneed Baydhabo Galmudug Jubbaland iyo dagaala iyo maxaan ku yiraahdaa waxyaabo aan loo dirin marka walaalkay af macaani kaliya looma baahne dawladdan waa in ay isaga tagtaa xilka shacabka Soomaaliyeed baa u dhiibtay mas'uuliyad weeye waana laga xisaabtami karaa waa tahay iyago waxa weeye dawladdii iyo waxa kulmaya dawlad goboleedyadii waxana laga wada hadli doonaa sida la filayo qaabka doorasho ay u dhacayso siyaasadana way ku dhex jirtay muddo marka barxadaha kala guurka oo dhani maxay mar walba u noqdaan waxyaabo aan lagu talagelin inay soo baxaan rajaynta ayaad ka qabtaa in wada hadalkaas lagu guuleysan doono marxaladaha kala guurka ama dib u dhaca ama higsigii la higsanayay inuu u dhici waayo sidii loogu talagalay had iyo jeer duruufaha iyo waqtiga la soo maray iyo marxaladda Soomaaliya ay soo martay baa xukunta ma aha arrin aanu u saari karno in systemka markaa jooga ama xukuumadda federaalka ay hadda joogtaa inay sababayso Soomaalidu meeshay gaartay waa meel aan la baciisan karin ama aan lala yaabi karin in ama wax dib u dhacaan ama wax sidii loogu talagalay ay u socon waayaan qodobka labaad shirka la filayo inuu dhaco waxaan ka filayaa haddii daacad ka noqdaan saamilayda siyaasadeed ee Soomaaliya ama dowlad goboleed ha ahaato ama dowladda federaalka ha ahaatee in wax badan la hagaajin karo دكتور عبد السلام واحد لا شقيسة حسابته واحد لا شقيسة وهذا يسبدل دونك دولتي وقت إلا السيو ونظامك الله وضوء يقول ياسو أي وضان يدولت قبل هذه الشركة عين لا يسكو كيرو حل جارو مكوم وقطارينته حلك أنك وسوقنا هرت شركة كما هو رعينه لكن وحى موقته إن جابس بدن أي أوجرو دولة واجبات ككسر الموادين معناها أنك كموادين هدانا حق أن كل إنها وحكم إذا أجوين وح الله لو وحو وماركت مضي أما بماركت ودما نقاضي دستورك إن أي وقفين كرتو أو أي كم يتهي دورشة حل جدا إن لقبته أو أي كم يتهي جوابها دورشوينك أو أي كم يتهي محاكر هذا أمني إن لسوقه وحصودا أياد ضيعان سو مجدد وحيابها أنا أقبل من الدولة هذا يكون مرام السيون سجوديجن كملجار كأي جوديجن دورشوينك أي لا إمادين وحكم دفيري شرعي دورشوينك لما هيو أحزابتي وكملجار دستورك وسيديسي أو وحبا ما يسن كقبنين سو مجدد وحد مودا يعني إن يمروا بأذان يسو يعني maxaa ku raada in maamul goboleedyada kaanama waxabad uma leeysa inaan isla fahamsaneen dastuur baa jiro wax walba wixii anaga aan tilaabo qaadayna dastuurka waa inaan ooga dambayna waa tahay ciga sideeba xeega loo xigtaa ku nabadka hadalladani bay ka mid ahay maxay tahay rajada kaaga muuqata in dalka Soomaaliya 50 sano kadib doorasho hal qof iyo hal cod sida dawladdu ay ku doodayso in la gaari karo doorasho qof iyo cod arrin adag weeye arrin muhiimad lena weeye waana arrin aan aaminsanahay in la gaari karo laakiin waxay u baahan tahay meel kasta oo daldaloola ama magaciisa ay ka jirto dhinac amni ha ahaato dhinac tirakoob ha ahaato dhinac xuduudda dowlad goboleed ha ahaato intaasoo dhan in la dhammaystiro waqtina loo ogolaado وانا هجاجيسا وانا أمزنا اللي جاركم. وقدم بنتي دكتور عبد السلام عبدي محل حلو أركتا أديكو إيه إن دور شو كنت أصل كدب بهدي دولتي كل واقع اللي جاري وهي بقى خلدات كعب صواب حياة الأسطورة هي يكون مغنية سيد حلو جاركا. حلقة وحنوة كجد الدور شو إنك إن أي مارس واجبات كودي أي جبان النجو وحنوة بهنا هي دولة النجو وحنوة بهنا يقرن ما الصومالي ما أنت وحي ومن تياسينه عدالة حتى ما هي سنة محكمة دستورية وحنلاقي هي الصومالي ذا حلون نحو أو يانا كل لابنين واجي ماركتي دبعتدي أن كسو قحني دبكي بركعي يعني يعني لو علين مصلحة شخص جنا وحكون مصلحة قرنيمو هي مصلحة أمة الصومال شعب كصومالية. أيها دبعتدي كوس وحيا هاي دكتور عبد السلام عبدي أو فلانقية ربها جيس كافريقية أو عثمان عجة أو سياسي كفالو ذا ربها الصومالية اللي بدو واحد شو يعني روب ضد قبل أنت هنا شو تنسى نبكي هذا كل بدونا هدي لا يرحل لكم وسلايو أنا بتقلي. mahadsanid yaasiin ciise wardheere iyadoo Soomaali fara badan ay u qaxeen wadamo shisheeye gaar ahaan kuwa Yurub ayaa waalidiinta qaarkood ay carruurtooda dib ugu celiyaan dalka si ay u soo bartaan diinta Islaamka iyo dhaqanka warbixin arrintaasi la xiriirta magaalada Boosaaso waxa ay nooga soo dirtay Faadimo Yaasiin Jaamac sanadihii u dambeeyay ayaa waalidiin badan oo Soomaaliyeed oo ku nool qurbaha waxa ay go'aansadeen inay wadanka Soomaaliya dib ugu soo celiyaan ubadka ay dhaleen kuwaas oo qaar ka mid ah tacliin looga dhigo barashada diinta Islaamka dhaqanka iyo dabeecadaha bulshada ay ka soo jeedaan
iyadoo bulshada ay waddanka gudihiisa ugu yimaadeenna ay ugu magac dareen dhaqan celis. isdhexgalka dhalinyarada qurbaha laga keenay iyo kuwa waddanka ku nool ayaa waxaa ka abuurmay barashada dhaqanka Soomaalida iyo barashada caadooyinka reer galbeedka. waalidiinta dhalinyarada waddanka gudihiisa ku barbaartay ayaa ka walaacsan dhaqamada ay kaga dayanayaan ubadkoodu dhalinta qurbaha ka timid, sida labiska, amarada waalidka oo aan la tixgelin, iyo inay u hanqaltaagaan inay u tahriibaan wadamada ay dhalinyaradani ka yimaadeen. waxaana ay taasi sababtay in waalidku uu ubadkiisa ku dhiirigeliyo inaysan wax xiriira la samayn da'yartaasi si aysan isugu dhex milmin, inkastoo aysan dhag u jalaqsiin halkoodana ay ka wataan tallaabooyinka ay u arkaan horumar iyo ilbaxnimo in ay ka dhaxlayaan dhalinta ka timaada qaaradda Yurub. waa kan aabe ka mid ah kuwa ay arrintani saameynta ku yeelatay oo ka hadlaya waxyaabaha dhalinta ka timid qurbuhu ay ku soo kordhiyeen dhalinyarada waddanka ku sugan. magacaygu saddexan waxaa la yiraahdaa Xaaji Salaad Barkhad. dayarka iyaga la waxay ku soo kordhiyaan sidii u labisan yihiin oo labistaan, sida westernka koofiyada in gadaal laga xiro, suunka iyo surweelka barida haafkeeda in la geeyo, adiga waxyaalo noocaas ah, qaab noocaas ah oo problema familladii ka dhex yimaada, awlaadii, caruurtii, kuwa waaweyn dhibaatada leeyihiin waxa weeye shaqadii oo kuwa kale ugu horumarayaan. ka bacdi wuxuu oranayaa tahriib gal 4 sano ka bacdi soo qaado baasaboorkii gaalada, ka bacdi dhibaatooyinkaas ay nagu hayaan. buujimo bahal la yiraahdo bay yiraahdaan bal ciyaara buujimada murqiya yeelanaysa, marka murqiya yeelato shafka ku qaadanaysa macallinkii wax ku barayay ama xiradaad ugu xiraysnayd oo diinta ku barayay oo dhaqanka wanaagsan ku barayay, ka bacdi kii kala ku dhiiranaya marka dhalinyarada jabsatay iyaguna waa jabsanayaan. dhalinyarada waddanka dib ugu soo noqotay ayaa waxa ay la kulmaan xilliyada hore caqabado adag oo mararka qaarkood ka caraysiiya, waxaana arrintani sababtaa inay abuuranto isxulufaysi ay si gaar ah u midoobaan. Ismaaciil Burhaan Ismaaciil oo muddo 3 sano ka hor laga keenay dalka Ingiriiska iminkana ku sugan magaalada Boosaaso ayaa ka waramaya arrimahan. waxaan jiraa 7 sano waddanka hadeer waxaa joogaa 3 sano, sanadkii afraad bay socda. kolba waa qof walba oo dibadaha ka yimid markuu ku yimaado wuxuu la kulmayaa dhib oo ah ku caadayaan oo daawo dhaqan celis ama xanaaqaysa adiga waxa ka qoonsanaysa inaad banaanka u baxdo oo xaafadda iska jirto oo xaafadda ka bixin, oo hadhuuti waxay kugu adkaanaysaa inaad dhaqankii iyo dadkii la qabsato. waxa weeye isfahan la'aan baa jira oo ma taqaanaa dadkii waxa weeye waa iyagii waa micnihii ku caadayo oo hadda adigii micnihii waa just lama sheekaysan karin sababtoo wax la yaabaa luuqadii inaadan si fiican u aqoon oo qof waxaa raadsanaysaa oo adiga xagga kaala yimi ama dee Englishka un waa la wada fahmayo, waa luuqad common ah oo hadduu qof Ingiriiska yimi iyo hadduu America ka yimi waa isla meeshii oo English uma lagu wada hadlaa. dhalinyaro hadeer waxaa jira oo xagga ka yimi oo xun oo xagga oo loo soo celiyay wax khaldan bay sameeyeen oo dad waaweyn ah oo hadda halka markii yimaadaan xitaa oo dhalinyaro iyo Soomaaliyeed oo la xixirayo oo iyagii duufsanayo oo ka xiisanayo oo mataqaanaa wax khaldan baraya. laakiin dad waxaa jira oo xitaa oo Englishka ka faa'iideysta jira oo micnihii oo qof dibadda ka yimi hadda deersla tahay qof Soomaali uu ku imaanayo English ba ka faa'iideysanaysaa waxba uu ku baraya oo cilmiga uu haysto adiga waa ka faa'iideysanaysaa waa uu ku taabanaya. inkastoo dhalinyarada sanooyinka hore ay ku adkaato inay bulshada si toos ah u dhexgalaan ayaa haddana waxa muuqata inay saaxiibo ku yeeshaan ugu dambeyn dhalinyarada ku sugan waddanka gudihiisa, kuwaas oo ay ka bartaan dhaqanka Soomaalida oo ay caanka ku tahay oo ah in wax la isdhaafsado oo qof kasta uu la qaybsado kan kale wixii uu haysto haba yaraatee. Cabdullaahi Aadan Ciid oo muddo 8 sano ka hor laga keenay dalka Canada oo aan kula kulmay magaalada Boosaaso ayaa ka waramaya waxyaabaha iyaga naftigoodu ay ka barteen dhalinta dalka ku sugan iyo dhaqamada ay iyaguna soo kordhiyeen. waxa la marka imaanay waddanka waxa qaadan jira hooyo maxay siin jirtay subax waxay siin jirtay 10 kuma siin jirtay 10 waxa ku iibsan jiray 10 xabo nacnac kaliya cunu jira. marka yani muxuu ahaa maxay abaar joogan waxa bilaabay inaa qaybsado يعني هذا صفات هاي سنة كلا برو هذا عبتها عبايو إنا حاف إنا عبا حافنا ويفنا أسيو ما كنت دبنا حب حنتي أو حب حنتي عبرنا هذا كرجة واحد مي ما سافر أي مي ماين هارون أبا ما كأدو كنت أجند رقفها كاب حندنا له يعني أبا لدري مزايو حال بدن بالكور اللي يرد لقن كود ومرك هدي عليك ومرك هو رساك أمس هذه هذا وحي قاتن دركان يقاتن يو سعد كان يقاتن هذا كان يقاتن تهريبتنا والسبب بس لكن هذا وحمد ده
inuu dhacayo mingling in isdhexgalay. Inkastoo ay muuqato inay jirto dhalinyaro tiro badan oo dhinaca dhaqanka iyo labiska kaga dayday dhalinta qurbaha ka timaada ayaa haddana waxaa jira qaar sarugsan habdhaqankooda kana soo horjeeda inay wadankooda dal kale ka aadaan. mid ka mid ah dhalinyarada ku sugan magaalada Boosaaso ayaa fikirkaas aaminsan. maxamed jaansid waa dadkii dhulka qaxay oo hore cararay oo wadanka ku kalsoonaan waayay oo meelaha ku dhashay. dadka hadda waxay isaga dhigeen inay yihiin dad wanaagsan oo dalka wuxuu qabanaya waxa kala duwan waxa ay dadka u sheegayaan iyo waxay niyada ka aaminsan yihiin oo ku dabaqaya waxyaabo ay ku soo arkeen meelaha ka yimaadeen. mararka qaarkood waxaad dareemaysaa inaysan si fiican uga dhaqmin bulshada ama iska weynaysiiyaanin. xiriir intee leeg baa ka dhaxeeya iyagii dhalinyarada kale ee la leeg sida muuqata iyaga isgruubsada iyaga si gaar ah wada macaamila isku mabdaba aaminsan yihiin. dhalinyarada wadanka dib ugu soo laabanaysa ayaa isugu jira qaar loo keeno inay bartaan dhaqanka iyo afka Soomaaliga kuwa danaynaya inay ka samaystaan goobo ganacsi iyo qaar shaqooyin ka hela maamulka goobaha waxbarashada iyo hay'adaha caalamiga ah ee fadhigoodu yahay Puntland. Faadime Yaasin Jaamac, VOA, Boosaaso. haddana ku soo dhawaada heestan dabacsan. intaasna waxaa inoogu baahintiin idaacadeed ee galabta oo idinka imanaysa laanta af Soomaaliga VOA. tan iyo kulanti dambe waa Xuseen Barre iyo VOA idin la sidaasiyo nabadgelyo.
sida oo tahilaaca ilaskeeda cadceeda ammaantada libaaxa malawaana dogayne ayaanu kiyamaanta wadnaxayga agtiisa sida